بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. maanta oo maalin khamiisa ay tahay, taariikhda miilaadiguna ay ku beegan tahay 23 bishii 9 2021. hadduu rabbi idmo subxaana wa tacaala, waxaan halkaa ka bilaabaynaa kitaabka siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam, suluugiisii, habdhaqankiisii, akhlaaqdiisii iyo noloshiisii guud ahaanba rasuulka sala allahu calayhi wasalam. waxaan isku dayi doonaa haddii rabbi idmo inaan ka soo diyaariyo siirada kitaabka lagu magacaabo alraxiiqu lmakhtuumka, sababta oo ay tahayna waa kitaabka dadweynuhu ay aad iyo aadka u xiiseeyaan. kitaabka raxiiqa keligii ma aha, laakiinse waxaan kaloo isku dayayaa inaan ka soo diyaarsadoon qaybo ka soo qaato kitaabka qur'aanka kariimka ah iyo siiradii, kutubaha siirooyinka ah ay culimmadu qoreen. waxaan isku dayi doonaa oo kale inaanan kitaabka u akhrinin si laqba ah, balse aan u akhriyo hab taariikheed ama si siiro iyo muxaadaro oo kale markaa ah, hadduu rabbi yidhaahdo subxaana wa tacaala. waxaan ka bilaabi doonaa dhalashadiisa, wayna socon doontaa ilaa maa shaa allah. idan dadka muslimiinta ah waxaan ku guubaabinayaa inay aad iyo aad uga faa'iidaystaan siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam. waana codsi nooga yimid dadweynahayna ama dhegaystayaashayna oo mar hore ahaa, taasoo maanta ilaahay noo suurageliyey subxaanahu wa tacaala. rabbiga awoodda sare leh, waxaan wax badan ka baryayaa inuu khayrka iyo wanaagganna waafajiyo. siiradan aan akhrinaynana aniga iyo inta dhegaystayaasha ah oo dhan inuu u noqdo mid u kaxeeya jannada ilaah subxaanahu wa tacaala, dhaqankeenna inuu wax ka bedelo, suluuggiina inuu hagaago. mar allaala markaan aragno qaabka iyo sida uu rasuulku u noolaa, dacwada uu u fidin jiray, uu u sabri jiray, imtixaanaadkii la soo gudboonaaday, caqabadooyinkii u yimid, isuu aga tallaabsadou uga gudbay, rabbina u waafajiyey. taasaa waxay keeni doontaa idan alleh inaan anaguna ku dayano suubanaha sala allahu calayhi wasalam, bacdamaa ilaahay uu yidhi laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasana. nebigiina waxaa idinkugu jira uswa, ku dayasho, qudwo aad iyo aad u wanaagsan. waayo axadka lagu daydo qofka ugu horeeya waa asaga sala allahu calayhi wasalam. akh walba iyo ukhto walba oo siiradan inta ay socoto wax ka dhegaysta, ku intifaaca, dadka gaarsiiya, waxaan ka baryayaa ama aan ka codsanayaa inuu ii soo duceeyo aniga, labadayda waalid, mashaayiikhdayda iyo muslimiinta guud ahaanba. ilaahay subxaana wa tacaala inuu nagu saacido ayaan ka baryayaa, sida uu bilowgiisa noo gaarsiiyey dhammaadkiisa inuu noo gaarsiiyo. ilaahay ayaan wax badan ka baryaa subxaana wa tacaala. wixii akhtaa ah oo aad ku aragtaan, wixii gef ah oo aad ku aragtaan, wixii si qaldan loo sheegay oo aad ku aragtaan, waxaan idin sheegayaa inay tahay nafteenna iyo shaytaan isbiirsaday. ilaahayna uu beri ka yahay subxaana wa tacaala. waxaana ka baryayaa inuu iga cafiyo wax walba oo aan asiibo, oo sidii loogu talagalay aan u sheego. sawaabta iyo khayrka waafaqdana ma aha cilmigayga, ma aha caqligayga, ma aha garaadkayga, balse waa tawfiiq ilaahay. waxaanana ka baryaa inuu ilaahay
ajirkeedana siiyo subxaanahu wa tacaala. siiradii oo bilaabatayna waa tanaa iyo darsiga ku xiga. wabilaahi towfiiq, wallaahu aclam.